macnaheedu waxay tahay wuxuu saf leeyahay shantii tuug ee halka qoys ahaa shan tuuga oo shantuba hal qoys xataa beel sare maaha jifi hoose isla wada yihiin wuu isaguna jifi leeyahay taa macnaheedu waxay tahay sharci ma xeerin ummad Soomaaliyeed ma xeerin maxkamad dhan buu ka yahay gudoomiye ma uusan fiirin qabiilka kala han weynaaday qabiilka u muuqday ummadda Soomaaliyeed ma sasab fiirsanaysan marka ma taasaa wax la daawan karaa isaga ayay tahay in laga ceyriyo maxkamadda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed ay u dul qaadan karto ma aha madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaan ku codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed haddii aanu nahay haddii aad doonaysaan dad idin la shaqeeya waa inay idinka helaan waxay ku kalsoon yihiin oo niyadooda ay ku dhisan karaan oo wanaag aad samaynaysaan xaq darro faraha laga laabto horaan uga soo daalay horey baan waxaan u ogeyn wasiir Cabbaas Siraaji dilkiisii ninkii ka dambeeyay oo lagu wada hagoogtay oo hal family jifi yari ay ku hagoogatay ma ummadii Soomaaliyeed oo dhan iyo jifi yar bay noqotay marka war aqliga xagee idinkaga jira aqligu xagee buu idinkaga jira ummadii Soomaaliyeed oo dhan maxaa ku dhacays maxaa ka khaldan dadka qomku ma qom la rogayaaba see wuxuu jiraan qof baa dambi lagu soo eedeeyay waaran baa lagu soo xiray waxaa lagu sii daayay damaanad maadaaba waqtiga dambigiisa la baaraya aysan noqon karin sida uu sheegay ninka gudoomiyaha maxkamadda sheeganaya 24 hours adduunka kama dhicin dambi la yiri nin siyaasiya dambi lagu soo cadeynayo 24 hour ha lagu soo cadeeyo caalamka kama dhacdo isbuuciyo bilo sanado ayay qaadataa qofka dambigiisa in la cadeeyo suuqley 24 hours ha lagu soo cadeeyo waxba wad cadeyn weydeen afartii tuug ee ugu horeeyay ninka xiran ee dambiilaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur fiqi mahad salaad odawaa iyo ninka maxkamadda haysta hal family weeyaan ma familkooda ummadii Soomaaliyeed oo dhan kala qiimo weynaaday ma qabiilba ummadii Soomaaliyeed oo dhan kala sareeyay war aqli isu yeelo dad yahow lama hadlayaan familkaas waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed ee sharafteeda lagu ciyaaraya la hadlaya iyo waliba dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan la hadlayaa ummad baa idinka sugaysa sharaf iyo karaamo iyo wax qabad laakiinse ma aha tii shalay ee Siraaji baan ogeynaad meel saari weydeen oo ilaa ay hadda ninkii dambiilaha ahaa oo ay ku caddahay inuu dilay oo qirtay tiirka la keeni laayahay cadaaladda Siraaji la marsiin waayay ayaa maantana waxay maraysaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dambiilo weyn in ninka ku talka ah ee inaadeerkiisa rumaada u yiraahdo waa bilaa dambi ma sharci baa shaqeeya mise inaadeernima shaqeysa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ummadda Soomaaliyeed ha uga soo jawaabin taas ma qabiil baa shaqeeya mise sharci baa shaqeeya hana loo soo kala cadeeyo labadaas hana ka hadlaan ninka xeer ilaaliyaha guud qaranku uu ka hadlay xaq darro in lagu sii daayay oo ninkaas maxkamadda haysta oo xaq darro hadalka u yirina wuu cadeeyay baaritaan 24 hours inaan lagu cadeyn karin cid kasta og marka waxaan idin sheegayaa go'aanka uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waynaad la qaadataan oo ninkaas waajibkiisa la marsiiyaa ummadda Soomaaliyeed sidaas kuma cafiyeyso kuma helaysaan ummadan idin heelan ee dawladnimada u heelan sidaas idinku lama sii socon doonto haddii xaq darradana aad ku sii wadaan xaq darrada meesha ka socota mid la aqbali karayo ma aha xaaladda aad ku jirtaana waan ognahay waxayna u baahan tahay awood iyo baawar ummadda Soomaaliyeed oo dhan taasay garab idinku siinaysaa laakiin reer baa qaylinaya maxay tahay reer baa qaylinaya waar loo dhis weeyaan dagaal oogayaashii la yaqaanay caydiid ugu horeeyo dagaal oogayaashii la yaqaanay ee baarlamaanka dhex fadhiya ayaa hal qoys acuudu billah waxyaabaha qaarkood markaad aragto waad naxaysaa hal qoys baa 8 nin oo dawladda kaga jira isu soo urursadeen dafaa soo qabsadeen oo leeyninkayaga lama xiri karo ka wax dilay lama dili karo waa ummadii kale maxay ahayd marka ummadda kale ma dhaxaanba ma ciidba
محيتها أمد الصومالية ذا كله هذا كلام حال آمسنتهم تذكينا آمسن أمد الصومالية محامسين ورمشان إنه حلقة استوى ضد الشيء أي أمد الصومالية ذا رنا يوعد جنتها يوعد كرنتها وحس وح عقلي بالآذن كقارن كريه معه وح أنا أقبل كرينا معها ninka gudoomiyaha ah ee maxkamadda haysta waa in xilka sida ugu dhaqsaha badan laga qaado aad baan idin salaamay dhamaan